dagaalkan ka dhacay deegaanka u dhaxeeya Baydhabo iyo Buuraha Kaba ayaa waxa qaaday ciidanka nabad sugidda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya kadib markii ay ka war heleen in rag ka tirsan al-shabaab qaybta qaabilsan qaraxyada ay ku diyaarinayaan waxaana halka ka dhacay khasaaro. taliyaha nabad sugidda Koonfur Galbeed ayaa waxa aan ku wareysanay khadka telefoonka waxa uu noo sheegay in ay ahaayeen 9 qof halka 3 ay qabteen 6na ay qarxiyeen. taliyaha ayaa sheegin wax khasaaro oo soo gaaray ciidanka qaaday howlgalka. waa kan taliyaha nabad sugidda maamulka Koonfur Galbeed Maxamed Isaaq Ibrahim Aflow oo aan wax ka weydiinay. tuulo lagu magacaabo Faydablah oo Buuraha Kaba u jirto 25 kiiloomitir dhinaca Baydhabo ka xigto ayaa baryahan waxa ka socday waxa la dhahayo qolooyinkii nabadiidkii kooxdooda mutafajiraadka ay yaqaaneen oo qaraxyada qaabilsaneed ayaa guryo meesha ku yaal ay wax ka wadeen xogtii aan helnay. waxaan la shargareynay maamulka wasiirada Koonfur Galbeed ahna kusimaha madaxweynaha wasiirkan u sheegnay wasiirka Amisom iyo ciidankii Buuraha Kaba ayuu asaguna runtii ula shargareeyay. marka weerar gaadma ayaa saakay meeshii lagu soo qaaday ayagoo guryahooda ay ku jiraan ayaa loo imaaday oo walxii qaraxa ay jaakadaymihii wixii bambaanadii kulli ku dhex jiraan. marka dagaal ayaa meesha ka dhacay oo ciidanka Koonfur Galbeed gaarka u tababaran iyo maxaan ku raahdaa kuwii nabadiidka oo qaraxyada qaabilsanaa oo rabay dad muslimiin aan waxba galabsan inay dhibaateeyaan. dadkii rasaasiga ka dhamaatay 6 kamid ah isla goortii isku qarxiyeen 3 kamid ahna iyo hubkoodii oo qoryahoodii bambaanadoodana nolosha lagu soo qabtay. taliska Amisom uu ku leeyahay degmada Buuraha Kaba ee waqti xadirkan ay ku sugan yihiin. waa guryo isu dhow ay ku sugnaayeen xogtooda si official ayaa loo hayay oo maalmo ka hor mataqaana la soo siiyay. tartiib waa la soo xaqiijiyay markii la soo xaqiijiyay kadibna ciidankaas oo sida gaarka u tababaran oo loo sameeyay inay howlgalada ciidankaas oo kale ay fuliyaan loo diray wayna ku soo guuleysteen wax khasaaraha hab yaraatee soo gaarin malaha. sheegashadan saraakiisha maamulka Koonfur Galbeed ay sheegeen in ay qabteen 3 ka tirsan dhaqdhaqaaqa al-shabaab ayaan jirin warar kale oo ka madax bannaan. Maxamed Cabdi Cismaan Maxamed Faradheere TV-ga caalamiga Star magaalada Muqdisho.